ويا داود الكسر وهذا وروحي نقص وقاري دلك جودي سيدة بدي سوني أخري أنا قام محمد سعيد الصحاف أنكو بلابي ورك نقص وقاري مقالة مقدشة عاصمة وطن كالصومالية أي لقصو قبل شركة ماذا شيء كاشيغا دلك الصومالية شركة يوحى كقيب قلي وكيلة وضمادة باش عالمك كو هذا قرامة مدوبي يمسؤولين تسرع دولة وطن كالصومالية وربحنا تاكو صابصا وحا مقدشة نقص ودري وريهنا محمد عبد الناصر يانلي shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa shalay ilaa ay maanta gelinkii hore waxa intiisa badan diiradda lagu saareeyay horumarka Soomaaliya sida ammaanka, dhaqaalaha, siyaasadda, doorashooyinka iyo guud ahaan horumarka dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maanta shirka gudoomiyay ayaa inta badan waxa uu khudbado siinayay guud ahaan mas'uuliyiintii kala duwan ee madashaasi ku sugnaa. Madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa waxay halkaasi ku soo bandhigeen arrimo la xiriira deegaanada ay maamulaan sidii lagu horumarin lahaa. shirkan ayaa gabagabadiisa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warfidiyeenka u akhriyay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. maanta oo bisha Oktoobar ay tahay 2 waxaa ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho shir laba bari socday 1 iyo 2 Oktoobar oo isugu yimaadeen Soomaaliya iyo taageerayaasheeda beesha caalamka kulanka sanadlaha ah ee la yiraahdo Somali Partnership Forum kulankaas oo ah kii afraad oo la qabto laba waxay ka dhacday hadda ka hor magaalada Brussels ee dalka Belgium xarunta European Unionka labana waxay ka dhacday Soomaaliya oo kii ugu dambeeyay waa maanta ka soo qaybgalayaashu waxay qiimeeyeen horumarkii la sameeyay ilaa iyo shirkii ugu dambeeyay bishii July 2018 waxayna isku raaceen in wax laga qabto arrimaha dhiman ama caqabadaha haray beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay waxayna ku amaaneen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh ee la gaaray ee ku saabsan fulinta isbedelada laga sameeyay xagga ismaamulka lacagta ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dib u habeynta lagu sameeyay hay'adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay al-shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyay dib u heshiisiinta gobolada qaarkeed waxaa la isla qiray inay jiraan wali caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhalinyarada in dhaqaalaha la kobciyo in la sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani'aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka bini'aadamka iyo in asaaska loo dhigo wadatashiga siyaasadeed iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo in haweenka iyo dadka
laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo masalaad Soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoog ahaa waxay ku heshiiyeen wax la yiraahdo mutual accountability framework oo ah isla xisaabtanka loo dhanyahay kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaara oo u baahan waxqabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horeysa bisha December 2020 beesha caalamku waxay sheegeen horumarka laga gaaray arrimo muhiim ah sida xoojinta iskaashiga siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada taasoo la sii horumarin karay madaxda Soomaaliyeedna way qireen in horumarka arrinta laga gaaraa ay muhiim u tahay in horumar badan laga sameeyo arrimaha siyaasadda amniga iyo hagaajinta ama dib u habeynta arrimaha dhaqaalaha taasoo uga baahan commitment ama uga baahan dadaal dawladda dhexe dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada madaxdooda shirkan ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa goobjoog ahaa 50 dawladood gaar ahaan kuwa daneeya arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho madaxweynaha maamul dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugnaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ka hadlay sababaha ay uga qayb gali waayeen shirka madasha iskaashiga ee wadanka Soomaaliya warbixinta ku saabsan waxa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Maxamed Madani madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay ka qayb galay kulan loogu magac daray kulanka madaxweynaha iyo dadweynaha gobolka Bari ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay sababaha ay u diideen inay ka qayb galaan shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dawladda Puntland shirkaas kama aysan qayb galin waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kalifay inay Puntland ka qayb gali weyn maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaasi u ah midnimada Soomaaliya iyo federaaleynta iyada iyo xubnaha kale ee dawladuhuna ay arinta ka sameeyeen waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas inta la eg in Puntland aan laga talagelin in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajandaha shirka iyo sidoo u dhigayahay inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan tala ku lahayn oo aan waxa ka soo baxay aan ra'yi ku lahayn oo Puntland baahiyaheeda aan la weydiinayn oo idinkuba waa arki kartaan la yiraahday waxaad ku leedihiin 5 daqiiqo oo dadka Carabiga yaqaan la yiraahdo tacliiq ama remarks qodbad nin akhriyay ayaa 5 daqiiqo idinkuna waxa leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday runtiina wax Puntland ay qaadan karto maaha bulshada caalamka oo dhan si cad bay ugu cadaysay inaysan arintaas raali ka ahayn shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ayaa maanta waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya marka laga yimaado maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka qayb galin waxa shirka ka qayb galay maamulada Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale madaxda beesha caalamka Maxamed Madani Universal TV Boosaaso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ka dhacay banaanbax lagaga soo horjeeday shirka madasha iskaashiga dalka Soomaaliya ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya
ka qaybgalayaasha banaanbax ayaa sheegay inaan loo dhammayn shirkaas waa siday hadalka u dhigeen warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo inooga soo diray waryaheena Iidle Aadan Maxamed. banaanbaxan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa ka dhacay maanta magaalada Kismaayo waxaana dadka dibadbaxa dhigaya ee wateen barar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan shirka madasha iskaashiga Soomaaliyeed kaasi oo maalintiisii labaad galay kana socda magaalada Muqdisho caasimadda dalka. banaanbaxayaasha oo socod dheer ku soo maray wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa ugu dambeyntii isugu soo aruuray garoonka kubadda cagta ee Wami Stadium waxaana halkaasi kula hadlay mas'uuliyiin uu ka mid yahay duqa degmada Kismaayo iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. waxyaabo khalad ah oo xamar ka socda oo aynu diidanahay shucuurteena ku muujinayno kow horta shirka ka socda magaalada Muqdisho shirka xalana ka socda oo aan loo dhammayn Jubbaland waa ka maqan tahay Puntland waa ka maqan tahay Galmudug waa ka maqan tahay yaa loo qabanayaa shirka marka shirka xamar waa qaadana anagu waxa ka soo baxana nama khuseeyo mana aqoonsanin beesha caalamkuna haday xamar kaliya shir u qabanayso iyada u taala shir umadu u dhantahay hadaa la qabanayo meel la isugu teey karo lagu qabto waxaan ka rajaynaynaa dawladda Soomaaliyeed waa dawladda iyadii ma nabcine war wadada sax ah iyo dastuurka ku dhaqanto mudaharaadkan ballaaran ee lagu tilmaamayo rabitaanka ummadda oo ay rabitaankoodii ay tabanayaan inay waayeen oo dastuuriga xaqa ay u lahaayeen waxaan maanta rabnaa inaannu caddayno in badan annagu waxaannu ku dadaalaynay inaannu raacno nidaamka iyo dastuurka dalka u degsan laakiin waxaa noo muuqata inaan dastuurkii iyo nidaamkii dawliga ahaa iyo kii Soomaaliya ku heshiisay ee federaalka ahaa midna inaan loo diyaarahayn iskugu nimid inaan shucuurteena muujino dhibaatooyinkana laga haya Jubbaland lagu hayo inaan muujino waxaan naga maqano xuquuqa iyo ku tagrifalka awoodda dawladeed ee uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagrifalay inaan u sheegno adduunka inaan diidanahay international community waxa uu sheegaya shirkan ay xalana ku qabsadeen haday dawladda Soomaaliya xamar kali u haystaan ma aha dawladda Soomaaliya shirka waa qaadacnay mana joogno balaqli daradooda dawladda Soomaaliya waxay ku leeyihiin wasiirka maaliyadda ayaa shirka Jubbaland aga qayb galaya sidaad ku aqoonsatay madaxweynihiisa maadan qoonsan waa diiday wasiirka madaxweynaha sameystay maxaad u leedahay wasiirka maaliyadda ka soo qayb galo wasiir ma buu ogina dawladda ma qaadayada hadee madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Looga Dheer ayaa ugu dambeyntii banaanbaxan ka hadlay wuxuuna baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay inaysan Jubbaland aqoonsaneyn natiijo kasta oo ka soo baxday shirka madasha iskaashiga Soomaaliyeed ee ka socda magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad uga xunnahay shirka ka socda xalanay oo aan cid maanta ka qayb gashay beesha caalamkana lagu qaldaayo shirka isaga waxaan leenahay Soomaaliya kama soo qayb gelin Jubbaland banaanka ka tahay Puntland banaanka ka tahay Soomaaliya banaanka ka tahay beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa shirka hoos u fiiriso annagu waxaan ku soconnaa dastuurka federaalka ah ee ku meel gaarka lagu heshiiyey dawladda federaalka intaad midnimada diidantiin dastuurka lagu heshiiyey diidantiin federaalka diidantiin nabadeey baan leenahay Ilaadan Maxamed Universal TV magaalada Kismaayo magaalada Hargeysa ayaa waxaa kulan ku qabtay mas'uuliyiinta guddiga qandaraasyada Somaliland waxayna kulankooda ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin shirkadaha tartamaya iyo nidaamka loo marayo tartanka qandaraasyada warbixinta ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Muqtaar Ismaaciil Cali munaasabadan ay guddiga qandaraasyada qaranku ku shaacinayeen tartan loo galayo 6 mashruuc oo laga fulinayo gudaha Somaliland ayaa waxa daafuray gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen waxaana madashaasi joogay xubnaha guddiga qandaraasyada agaasimaha guddigaasi iyo shirkadaha iyagoo ku tartamaya qandaraaskaasi waxaana ugu horeyn daafuray kulankaasi oo ka hadlay kana waramay siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan arrimaha qandaraasyada gudoomiyaha guddigaasi Nuux Maxamed Xuseen waxaanu dib ballan qaadaynaa tartan daafuran oo transparency insha Allah taala
waxaa xusud mudan 77 shirkadood oo maalin qura tartan loo qabtay waxaan halkan aan rabaa inaan uga mahad celino madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi oo hirgeliyey oo dhidibada u aasay in loo tartamo dhaqaalaha dalka ama resource-ka dalka ayaan halkan rabnaa inaan uga mahad celino xubno ku hadlayay magaca shirkadaha ka qaybgelaya qandaraaska ayaa iyaguna dhankooga sheegay inay ku kalsoon yihiin in guddiga qandaraasyadu ay maamuli doonto hawsha hanaankii cadaaladeed ee awal samayn jireen. shirkadda Goran Construction waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida qandaraasaadka iyo qorshahan wanaagsan ay u dejiyeen tartanka. runtii waa arrin garsoora oo ay cadaalad ka muuqato. si cadaalada oo transparent ayaa halkaa loogu qorayaa qiimaha. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay hore u socdaan leeyahay waana ammaanayaa insha Allah. sidaan ku aragnay iyo cadaaladda imika loo wado iyo nidaamka imika loo wado waxa weey rajada yani waxaan rajaynaynaa inaan ka mid noqdo kuwa guuleysta haddaysan dhici weydana cidda guuleysata waan hambalyaynayaa. waxaan ku hambalyaynaynaa guddiga qandaraasyada qaabka ay u shaqeeyaan. waxaa iyaguna halkaasi hadallo ka jeediyay agaasimaha guddiga qandaraasyada qaranka Jabarta Saade iyo Marwo Caasho oo iyaduna ka mid ah xubnaha guddiga qandaraasyada qaranka. muddo 9 cisho ah bay shaqadaasi soo socoto guddiga qandaraasyada qaranka foomka laga qaadanayay oo dokumentiga laga qaadanayay oo systemkii caadiga ahaa ee qandaraasku marayay uu soconayay 23kii bishii 9aad bay shaqadaasi bilowmatay. bisha kowdeedii oo 10ka bisha tobnaad kowdeediina wuu xidhmayay foomka qaadashada documentku. saakana waakiisana gudoomiyaha guddiga qandaraasyada halkaa wuxuu ku furay maanta bishu 2 tahay maalintuna 4 tahay buu halkaa ku furay. waxa weeyaan annagu waxaan cadaalada yaan had iyo jeer rabnaa inaan ku shaqayno. cadaaladuna annagana way noo wanaagsan tahay ummadana way wanaagsan tahay si aan u kala saarno annagoo ninna weexanaynin waan ku dadaalinaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nala qabto. wasiirka beeraha ee Somaliland Axmed Muumin Sood oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay qaabka u shaqeeyaan guddiga qandaraasyada qaranku. sanadkan waxaa miisaaniyadda nagu jiray wasaaradda runtii aan u baahnayd dhismo inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland miisaaniyaddan noogu daray inaan sanadkan maadaama wax soo saarka dalka kor loo qaadiyo guddidana waxaan ku ammaanayaa runtii sida farshaxan kale wanaagsan ee ay birka u daadihinayaan oo runtii qof kastaba dee halkaa wixiisii lagu furay wixii lagu bixinayay marka hore lasii qoray runtii waxaan isleeyahay qofkii ku guuleysta inta kale aan guuleysan waa inay hambaliyaysaa. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Telefishinka Universal, Hargeysa. way daawadayaal wiilalkan nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal Studio-heena magaalada London. magaalada Cadaado ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay arrimaha dastuurka wadanka Soomaaliya. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta maamul dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Cadaado inooga soo diray wariyaheena Mubaarak Maxamuud Sheekh Aadan. kulankan oo soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta laga daafuray magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka ee Galmudug waxaana looga hadlay furitaanka kulanka dib u eegista dastuurka ee Soomaaliya. dhalinyaro iyo haween kala yimid qaybaha bulshada kana soo qayb gala kulanka ayaa aad uga dooday waxyaabaha ay tahay in lagu kordhiyo dastuurka Soomaaliya iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhalinyaradu. furitaanka kulanka waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yaro Xayle. haweenka waxaan maleynayaa wax badan ay waxa la isticmaalay si gaar ah ay wax uga soo baxaan in dib u eegista dastuurka waxay waana ogtihiin waqti dheer oo socda ilaa xilligan hadda ma soo dhamaan oo xilliyo dhamaad doona horta Ilaahay baa laakiin in la wada ogsoon laga wada qayb galo xogna laga wada qaato hadba meeshuu marayana ay dhalinyarada iyo haweenku ay aad u og yihiin waxaan noo suuro gelinayaa in fikir ay dadkooda og yihiin ma taqaanaa lala socod lala sameeyo. gudoomiyaha dhalinyarada ee Galmudug Caruuse Macalin Maxamed iyo agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga ee Galmudug Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in muhiim tahay in dhalinyarada ka qayb qaato ka doodista dastuurka Soomaaliya. dhalinyarada iyo haweenkuba kaalin uga jiraan xoog leh in dalka horumarintiisa iyo dastuurka laftirkiisa dib u eegistiisana ka qayb qaataan. inay seminaarkan u furto wasaaradda dastuurka Galmudug oo kaashanaysa wasaaradda federaalka iyo kulli hay'adaha taakuleynaya aadan ugu mahadcelinaynaa.
waana runtii muhiim in dhallinyarada iyo haweenkuba qayb ka noqdaan dastuurka. Dhallinyaradu waxay ku sheegi karaan marka afti la qaadayo dastuurku wuxuu u baahan yahay afti in la marsiiyo oo dadweynaha dhan la weydiiyo markaas wuxuu noqonayaa dastuur dadka maagta muxuu ahaay lagu dhaqmi kara wadanka dhan. Hadda laakiin waa ku meel gaar san aaminsanahay. ugu dambeyntii kulanka waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka ee Galmudug Sakariya Maxamed Axmed. Dhallinyaradu ay yihiin 75% hadday hablo yihiin hadday rag yihiinba bulshada Soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarna u yihiin dastuurka Soomaaliyeedna xaquuqaad badan oo uga maqan yahay dhallinyarada waxaa laga maarmaan noqotay wasaaraduna ay muhiim u aragtay in bulshada la gaarsiiyo ka wada qaybgalka iyo wada tashiga ku aadan sidii masiirkooda iyo xaquuqaadkooda ay uga hadli lahaayeen uga doodi lahaayeen dastuurkan la gabagabeynayana ay uga darsan lahaayeen. runtii baahiyada ayaga ah waa kuwa muhiim ah waa kuwa u baahan in si fiican oo wadajir ah la isaga qayb qaato haday tahay wasaarad haday tahay ururada bulshada siiba gaar ahaan dhallinyarada iyo haweenka. wasaaraduna arrintaa waxay u aragtaa inay tahay arrin lafdhabar u ah dadaalka loogu jiro in xuquuqda haweenka iyo dhallinyarada laga dhex helo dastuurkan soo socda. kulankan maanta laga daafuray magaalada Cadaadis ee looga doodayay dib u eegista dastuurka Soomaaliya ayaa socon doona 3 maalin ee soo aadan. Mubaarak Maxamed Shaqaadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaadis. xiriirka siyaasadeed ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa hoos u dhac ku yimid sanadihii tagay kadib sheegashada dawladda wadankan Kenya ay sheeganayso badda dalka Soomaaliya. magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay ayaa toddobaadkii tagay waxaa kulan ku yeeshay madaxweynayaasha labada dal oo wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyadoo labada dhinac ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in dib u nooleyn lagu soo sameeyo xiriirka ka dhaxeeya labada dal ee dariska ee Soomaaliya iyo Kenya. warbixinta ku saabsan waxaa eegaya waryaheena Tawakal. waxaa muuqanaya isku soo dhawaansho xagga diblomaasiyadda dawladaha dariska ee Soomaaliya iyo Kenya kadib khilaaf soo kala dhaxgalay labada wadan bilowgii sanadkan waxaana xilligaasi isfahamwaaga labada dhinac uu gaaray heerkii ugu sarreeyay marka dib loo raaco taariikhda calaaqaadka labada dawladood. soo ifbixii muranka diblomaasiyadeed ee xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho kadib waxaa bilowday dadaallo ay garwadeen ka hayeen dawladaha dariska midowga Afrika saaxiibada labada wadan iyo beesha caalamka si xal waara loogu helay isla markaana loo dejiyo xiisadaha dawladaha dariska oo laga cabsi qabay inay saameyn ku yeelato geedi socodka nabadeed ee gobolka. dabayaaqadii bishii Sebtembar waxa magaalada New York ee dalka Mareykanka kulan garwadeen uu ka ahaa madaxweynaha Masar ahna gudoomiyaha midowga Afrika Cabdifataax Al-Siisi ku yeeshay hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya waxayna kaga wada hadleen sidii dib loogu soo celin lahaa calaaqaadkii labada dawladood. kulanka madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta kadib waxa magaalada caasimadda ee Muqdisho gaaray wafdi ka socday dawladda Kenya oo hogaaminayay kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kuwaasi oo ka qayb galayay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. xubnaha ka socday dawladda Kenya ee gaaray magaalada Muqdisho oo wehelinayo safiirka Kenya ee Soomaaliya waxay kulan la qaateen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaana labada dhinac waa Kenya iyo Soomaaliya ay ka wada hadleen danaha dawladaha oo wadaagta ah sida bartiisa Twitter-ka uu ku sheegay kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. inkastoo aysan jirin wax war oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo salka ku hayo kulanka xubnaha ka socday dawladda Kenya ee magaalada Muqdisho kula qaateen madaxa xukuumadda Soomaaliya haddana waxa muuqanaya isku soo dhawaansho xagga diblomaasiyadda ee xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho. marka laga yimaado kulanka labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya waxa magaalada Nairobi kulan ku wada qaatay xubno sare oo ka tirsan safaaradda Ingiriiska ee Kenya iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto waxaana labada dhinac ay soo hadal qaadeen arrimo ay ka mid yihiin muranka badda ee ka dhaxaloosan dawladaha Kenya iyo Soomaaliya. xubnaha sare ee ka tirsan dawladda Ingiriiska oo iyagu si dhow la socday siyaasadaha Kenya iyo Soomaaliya waxay sheegeen in boqortooyada UK ay taageerayso sidii wada hadal loogu dhameyn lahaa muranka dhanka badda ee labada wadan taasi oo ku tilmaantay xalka ugu dhow walow ay Soomaaliya dhowr jeer arrintaasi ay ka biyadiiday.
in muddo ah dowladda Kenya ayaa waday dadaalo ku aadan sidii Soomaaliya ay wada hadal uga gali lahayd kiiska badda ee dacwadeedu ay taala maxkamadda ICJ inkastoo Soomaaliya ay ku gacan saartay wada hadallada Kenya ay doonaysay isla markaana Soomaaliya ay sheegtay inay ka warsugayso go'aanka ugu dambeeyay maxkamadda cadaaladda adduunka. Cabdiweli Xuseen Tawakal, Telefishinka Universal, magaalada Nairobi. aad u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdiweli Xuseen Tawakal oo inoo soo koobiyay warbixintaas ku saabsan xiriirka siyaasadeed ee u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo halka uu marayo kadib kulankii madaxweynayaasha labada dal ay ku yeesheen magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay ee ku taala wadanka Mareykanka. Wixii warar oo ku saabsan hadba xiriirka siyaasadeed ee labada dal iyo isbedelada siyaasadeed ee la xiriiri kara sheegashada dalka Kenya ee sheeganaysa badda wadanka Soomaaliya haddii aad waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. magaalada Hargeysa waxaa shir jaraa'id ku qabtay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka Wicid ee Somaliland waxayna shirkooda jaraa'id ay kaga hadleen arrimo dhowr oo la xiriira eedeymo ka dhana wakiilka dalka Djibouti. warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Nuuruddin. xisbiga mucaaradka Wicid ayaa xukuumadda Somaliland waxa uu ugu baaqay in muddo 24 saacadood ay ku erido wakiilka gaarka ah ee wadanka Djibouti u fadhiya Hargeysa. xogayaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi Wicid Maxamuud Cali Salebaan Ramaax oo warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ayaa waxa uu sheegay waa sida uu hadalka u dhigay in Djibouti ay tahay cadawga koobaad ee Somaliland isla markaana aanay marnaba raalli ka ahayn horumarka ay Somaliland samayso. waxaan runtii halkan ka jawaabi doonaa hadal ka soo yeedhay wakiilka Djibouti u fadhiya Jamhuuriyadda Somaliland oo runtii aanay waajib ahayn inuu nin wakiil sheeganaya oo intuu tiifiyada yimaado isagii dalkii uu martida ku ahaa jooga in aflagaado foolxun iyo waxyaabo aan laba qiranin haddii aad samaysay afcaasha uu runtii ku kacay ama jawaabta uu kaga jawaabayay gudoomiyaha xisbiga Wicid oo runtii ka turjumayay xusbinimo fikradda aanu ka aaminsannahay Djibouti iyo dadka iyagu waxay ka aaminsan yihiin. waxaan ka aaminsannahay dawladda yar ee Djibouti inay tahay cadawga koowaad ee Somaliland, cadawga mar walba ku dagaalgala muddada 30 sano ku dhow in aan Somaliland helin aqoonsi, in aan Somaliland noqon dawlad taagan oo ay jaar yihiin. taasi kama qarsoona ummadda reer Somaliland, xusbiga iyaguna ma qarsado mana qarsanayno. marka aanu talada qabanana waajibaadka iyaga ayaanu ka mari doonaa aynu nafarayo badbaadinta qarannimada Somaliland iyo la dagaalanka cadawgeeda. waxaanu xukuumadda u soo jeedinaynaa inay muddo 24 saacadood haddii xamaamo badani ka taalana 48 saacadood in dalka lagaga saaro waanaanu sugaynaa. xilligaana waanu ka hadli doonaa. haddii waxba laga qaban waayana arrintaasi waa cambaar labaad oo xukuumadda ku soo noqonaysa maadaama TV-geedana laga sii daynayay iyaguna inay la qabaan ayaanu xusbi ahaan u qaadan doonaa. Somaliland iyo Djibouti labaduba waxay sheegaan in xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo. safiirku uu sheegay, Somaliland uu sheegtay. markan safiirka Djibouti ee Hargeysa ayaa idin jawaabay. kol horena safiirka Somaliland ee Djibouti jooga idin jawaabay. idinkoo u cida mar haddii leeyihiin labaduba xiriir wanaagsan baa naga dhaxeeya, ma wax gaara baa jira oo idinka Djibouti ka doonaysaan? adeer waa been cadawgeena koowaad waxaan kuu sheegay inaan gaadhi aynu leenahay intuu halkaa ka tago oo nambarka Somaliland sitaanu xuduudka ka talaabayn. xiriirka wanaagsan naga dhaxeeya haguu joogaa maaha ashqaas hadday dee ashqaasi haysato baasaabooradooda oo ay iyagu dee yihiin wuxuunbay la mid yihiin kuwii muusaad isticmaali jirtay sirdoonka u ahaa unbay la mid yihiin. waana khaayimil wadaniin baan leeyahay kuwa caynkaali Djibouti xeersan oo inaga dhaxeeya ma jiraan. waa ninkaad ogeyd ee inagu qasbayay keenay immigrationka xamar intuu soo kaxeeyay yidhi xuduudkeenu waa kaa. miyay ka hadashay dawladdu? waxa weeyaan ashkhaasta danaystayaasha ama basaasiin aan odhan karo
ama khaayimal waddan inaan odhan karo meel walba way geli karaan anigu xusbi mucaarada baan ahay fulintii ma nihin way ku dhex dhuuman karaan adal wanaagga inaga dhexeeya waa maxay shalay buu duulayuu lahaa anagu soomaaliya mooyaane cid kale ma aqoonsanin safiirka jabuuti wuxuu noqonayaa safiirka labaad ama ka saddexaad ee somalilan ba jooga waddan u soo diray haddaad midkii saana talaa waa eryeynaa hal eriyo sida 20 casho qabateen adeer been yeynaan isu sheegin isagaan eryi lahaa number 1 haddaan maanta talada dalka ayno maaha safiirku nooca ma hadde wakiilka waddanka Jabuuti u qaabilsan Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka UCUD ayaa labaduba waxa ay xukuumadda ka codsadeen in jawaab ay ka bixiso hadallada mid kastaba uu sheegay in deelqaaf uu ku yahay Nuuruddin Culujoog Universal TV Hargeysa way hadda wadaal wiilkan nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal Studio ee magaalada London warar iminka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa sheegaya in ay kulan ku yeesheen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ay ka jira gudaha dalka iyadoo ay kaga hadleen arrimo dhowr oo la xiriira shirka iskaashiga madasha ay raahday shirka madasha iskaashiga ee waddanka Soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadda ka jirta gudaha waddanka Soomaaliya warkaan oo iminka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Cali Wehliye kulankan oo muddo 2 cisho uga socday magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta axsaabta siyaasadda dalka ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay marxaladaha uu dalka marayo gaar ahaan shirkii shalay ka furmay Muqdisho kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiinta axsaabta siyaasadda dalka ka dhisan ugu horreyn hogaamiyaha xisbiga himilo qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa dib u dhac dalka uu galay ku tilmaamay shirka madasha iskaashiga ay ka maqan yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaan u aragnaa khatar soo waajahaysa dawladnimada Soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleedyada dadkana dawladana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacayana lama habboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dawladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo sidoo kale waxaa kulankaasi ka hadlay hogaamiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka xasan sheekh maxamuud ayaa dawladda kula dardaarmay in aan dib loogu noqon dhibaatadii horay uu dalka kaga soo gudbay afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa in la abuuraa si kalsoonitu haddaanay kalsooni imaanin Jubbaland la arki maayo Puntland la arki maayo galmudugna waxa ka soo baxay wax fiican ma noqonayaan kuwa kale maanta joogana ma sii fiicnaanayaan dadku waa inuu kalsooni qabaa waa inuu cadow ku arag hadduu ku arka xataa waa inuu kula hadli karo wax ku sheegi karo oo qabo meel uu wax kugu sheegi karo iyo si uu wax kugu sheegi karo inay jiraan dawladda waxaan leenahay hadda ka horna waa markana cod dheer ku leenahay ha sababin dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idinka dambayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaasi oo sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meesha shalay laga yimiday yaan loo noqonin dawladda federaalka ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee dawladda ay u tahay maragaha ka deyso maxamed cali weheliye Universal TV magaalada Muqdisho aad mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cali Wehliye warbixintaas inooga soo diray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya deegaano hoos yimaada gobolka Gado ayaa lagu qabtay banaanbax lagu dalbanayay in dawladda waddanka Soomaaliya ay xabsiga ka sii dayso wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland waa sida hadal ku dhigeen qaar ka mid ah banaanbaxayaashii warbixinta ku saabsan waxa Gado inooga soo diray inoo soo koobiyo warbixintaas wariyaheena Cabdi Casiis
dibadbaxana lagu dalbanayay sii deynta wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan oo ku xiran magaalada Muqdisho islamarkaana ay soo qaban qaabiyeen qaybaha bulshada ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Dolow ee gobolka Gado. dadka ka qayb galay banaanbaxa ayaa socod ku soo maray qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada Dolow waxaana madaxda dowladda Soomaaliya ay ka dalbadeen in xorriyadiisa dib loo siiyo wasiirka amniga Jubbaland oo ku xiran magaalada Muqdisho. Cabdirashiid Xasan ma aha nin la xiro waxa uu qabtay adduunka idil baa laga ogyahay Soomaaliya idil baa og abaalmarin buu leeyahay iyo bila sharaf iyo bila geesi in la siiyo xarg aan ku nabad ilaahay nabadgelyo ka helnay lan ku ka helnay Cabdirashiid aha umaan ka saana wadanku qoyno dalma fuunaanay leeyahay qabiil ma nin tigsan ma ilaahay tusoo soo shirtay isku weeri dadka guddoomiyaalka kulli madin isku weeri waaray dadku oo tamay dalsoo qoynaari dalku dalfeero Soomaaliya la heeri lan ku hidam ma leeyahay wasiirka kasta way ka lahaa ra'iisul baarlamaan madmur salaadka la hayay saddex weeyaan ka qalaayay haddee dadka lankaasay garanta ku saar adika arag madawiinaga hayasi qaad waxaan ka codsanaynaa in aad noo soo deyso oo xorriyadiisa ku soo celiso oo shacabkaaga tixgeliso oo bulshada tixgeliso oo hooyooyinka tixgeliso oo umada tixgeliso oo salaadiinta tixgeliso oo bulshada hadyigii u soo baxay hogaankii u soo baxay dayixii u soo baxay dibudhiskii u soo baxay horumarkii u soo baxay cadaaladii u soo baxday sinaantii u soo baxday madaxweyne inaadna duminin gudoomiyaha degmada Dolow ee gobolka Gado Bashiir Xasan Cabdulaahi ayaa meel fagara kula hadlay bulshada banaanbaxa ka qayb galaysay wuxuuna madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqay in xorriyadiisa ay dib u soo celiso wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan waxaa halkaan u baaq dheer inuu jeediyo dowladda federaalka oo ugu horeeyo madaxweynaha ra'iisul wasaare ku xigay iyo golaha baarlamaanka labadiisa aqal muddo 32 bari aad qoraxda taagan tihiin waxaad u taagan tihiin adiga kaligiin ma taagnin gobolka Gado dhan meesha u badiyay qof ururka ka hadal haya iyo qof sidii kale qoraxda taagan way horta qodobkaas ogaada reedow maanta waxaa banaanka taagan balad xaawo iyo oo hadda laga yaabo saaka saacada inay ka baxeen baalkii dowladda Soomaaliya ayaa xiratay wasiirka amniga Jubbaland ilaa iminkana ma jirto in cadaaladda la hor keenay iyo in dib loo soo celiyay xorriyadiisa Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okkey TV Universal magaalada Muqdisho way hadda odayaal wiil ka nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal TV studio-heena magaalada London waxay noo soo socdo warbixin ku saabsan ugu yaraan inay dhaawac yihiin 10 qof kadib markii ciidamada dowladda wadanka Ciraaq ay rasaas ku fureen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Baghdad ee caasimadda wadankaas dibadbaxayaasha ayaa ka cabanaya musuqmaasuq iyo wax isdabamaris baahsan oo lagu eedeynayo mas'uuliyiinta dowladda wadanka Ciraaq warbixintaas ayaa noo soo socota balse qadar yar oo xayisiina ma jeceshahay inaad si fudud oo sahlan u kobciso aqoontaada iyo garaadkaaga ma jeceshahay inaad kordhiso aqoontaada diiniga iyo tan maadiga barnaamijkan mobile educationku waxa uu ka kooban yahay diini aqoon guud English maths iyo sidoo kale physics haddaba si aad aqoontaada u kobciso iska diiwaangeli adeega mobile education garaac xidig 404 gees liiska kuu soo bixi doona ka dooro lambar 3 oo ah mobile education sii dooro lambar 1 oo ah ifur adeega sii dooro lambar 1 oo ah mare geli goobtaad ku sugan tahay intaa kadib geli magacaaga waxaad hadda isticmaali kartaa adeega mobile education ballantiinu waa kobci aqoontaada goob kastood joogto adeega casriga EVC Plus ku kaydso ku shuba airtime oo ku adeeg haqabtirka baahidan iyo horay in loo talaabsado hormuud baahir geliso hawada sare geysay EVC Plus service adeega casriga EVC Plus dalka hooyo dhammaan qof kasta ahanayo loo riyaaq EVC Plus service
ku shuba airtime oo kula hadal eheladaada iyo saaxiibbada hal kastaaba ha joogin dal iyo dibad wehel weeye hormuud har iyo habeen ku adeego ku bixi biilka telefoonka biyaha korontada waxbarashada iyo kiloo dhan EVC Plus service ku dukaamayso hanka baahidaadiyo ku adeego mar kasta EVC Plus service EVC Plus ku xira Salaam Bank adoo joogo halkaaga ku kayso oo ka isticmaal hadba intii aad rabto EVC Plus service oo isticmaal hanaanka bulk payment oo ku bixi mushaarka shaqaalaha wixii intaasi dheer hadaba kala xiriir 101 ama 141 waayaha daawadayaal isku soo noqod wanaagsan wararka caalamkan waxaanu kuga haynaa ugu yaraan waxaa dhaawacmay 10 qof kadib markii ciidamada dowladda waddanka Ciraaq ay rasaas ku fureen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Baghdad ee caasimadda waddankaas dibadbaxayaasha ayaa ka cabanaya musuqmaasuq iyo wax isdabamaris baahsan oo lagu